Assalaamu calaykum daawadayaal, waa maalintii labaad uguna dambeysay shirka toddobada dal ee warshadaha ku horumaray uga socda dalka Jarmalka. Shirkan ayaa waxa uu ka dhacayaa meel wax yar u jirta magaalada Munich, halkaas oo ah buuraleyda Alps, waana buurihii hore Hitler shirarkiisa ugu qabsan jiray. Toddobadan dal ayaa sheegay markoodii hore inay ka hadlayaan ajandayaal kale oo ay ugu horeeyaan gaajada adduunka sii badanaysa iyo cimilada isbedelaysa, balse shirkooda gebi ahaanba waxaa hareeyay sidii cunaqabatayna u saari lahaayeen horle dalka Ruushka. maalinimada Isniinta ee maanta waxaa shirka ku soo biiraya kagana qaybgelaya qaab fogaan araga madaxweynaha Ukrainiyiinta Zelensky. Madaxweynaha dalka Mareykanku waxa uu ku celcelinayay in looga baahan yahay NATO inay sii mideysnaato, waxayna taasi ina gelinaysaa dareen ah in waqti xaadirkan uu jiro kala qaybsanaan xooggan oo NATO u dhaxaysa. Dalalkan toddobada ee warshadaha ku horumaray ayaana warshadahoodu sii shaqaynayna haddii aanay helin gaas ku filan ay ka helaan dalka Ruushka. Dalka Jarmalku dhowaan waxa uu sheegay 2 bilood iyo bar oo keliya in gaaska uu haystaa ku filan yahay, waxayna dalalka kale oo NATO iyo kuwa warshadaha ku horumarsan wadnaha farta kaga hayaan heshiis toos la gasho dowladda Ruushka ayna danaysato booska ay adduunka ka taagan tahay. waxaynu ognahay Jarmalku inuu yahay dalka ugu dhaqaalaha badan gebi ahaanba qaaradda Yurub. Shirka socda ayaa gebi ahaantiisba waxaa hareeyay dibadbax aad u xoog badan, kuwaasoo dadyogu ay kaga dalbanayaan inay gebi ahaanba joojiyaan dagaalka NATO ay ka wado gudaha dalka Ukraine, iyo sidoo kale inay ka hadlaan ajandayaasha looga baahan yahay waqti xaadirkan adduunka, kuwaasi ugu horeeyaan isbeddelka cimilada iyo la dagaalanka gaajada. waxaynu ognahay dalalka adduunku haatan inay ka siman yihiin maciishada oo sii qaaliyoobaysa, halka madaxdooda ay ku mashquulsan yihiin dagaal oo keliya.